mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxa ay uga doodeen mooshin laga soo gudbiyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabey oo haatan ku sugan magaalada Cadaada ee xarunta baarlamaanka Galmudug waxaana fadhiga baarlamaanka ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii 9 2018 waxaan ka gudoomay xildhibaano tiradooda gaarayso 97 qof waxaan ka gudoomay codka kalsooni kala noqoshada mooshinka ah kaasoo ku wajahan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi sidaan halkan ku cad eedeymahaas ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka oo xambaarsan ku takrifal dastuurka iyo xeer hoosaadka intaba waxaan u sheegaynaa in uu maaragtay iska difaaco baarlamaankana markaan eegnay qodobadan ku salaysan lagu soo eedeeyay sharciyadoodana ka gudoon ahaan iyo guddiga joogtada intaba waxaan isla garanay inay sharciyadiisa sax tahay sidaas awgeedna uu ku yahay sharci mooshinkaas lagana doonayo inuu madaxweyne ku-xigeenka iska difaaco insha Allah tacaala waxaan idin soo sheegi doonaa kolay ka fadhiga Britoole inuu doodiisana ay bilaabato insha Allah tacaala mooshinkaasna waana qabanay waana sax saacadaha soo socda Maryan Mira Ahmed Muuqbaahiyaha SBC Dhuusamareeb.